sida aad la socotaan waxaa lagu jiraa marxalad kala guur ah ayuu dalku ku jiraa oo doorashooyin buuq badan uu ka dhashay ay fooda nagu soo hayaan isla markaas ayagoo bilowdana buuq kale lagu bilaabay buuqiina aan muddo isbuuca u fadhinay sidii loo xallin lahaa waxaad la socotiin si aad iyo aad u wanaagsan in arrimaha doorashooyinka ee wixii la xiriira ee loo fadhiyey muddada isbuuca ah si wadar ogol ah loo soo gebagabeeyey cid walbana ay ka hambalyaysay runtii arrintaas ma ahayn arrin fudud inaan la fadhiisanno ama madaxdii maamullada gobollada ama dowlad goboleedyada iyo madaxdii xukuumaddu ay hor fadhiistaan midowda musharixiinta ayna qoraal tabashadooda ku aadan ay ka guddoomaan isla markaas muddo isbuuca qodob loo dul istaagay qodob walbana la xalliyey wax fudud ma ahayn laakiin waa lagu dhiiraday waana lagu guulaystay alxamdulilah arrintaas sida aad la socotiin si aad iyo aad ayaa loogu dhabar adeegay ujeeddaduna waxay ahayd marxaladda kala guurka ah ee doorashooyinka inay nooga gudubto yani marxalad amni ah oo buuqeedu uu yar yahay oo doorasho ay noo qabsoonto laysla ogol yahay oo xor iyo xalaala biidni illahi alkariim intaas kadib waxaa soo baxay kooxo leh intaas kadib waxaa noo sii dhiman weli wax kale oo aan rabno bannaanbaxyo waxa ka dhalanaya aan la ogeyn isla markaas aan qeexnayn ayaan qabanaynaa ka maamul ahaan waan iswarsannay marxaladda lagu jiro iyo sida looga soo shaqeeyey inaan qaylaba yeerin markaan fiirinnay waxaa noo soo baxday xilligan bannaanbaxyo ay suuragal tahay inay rabshado ka dhashaan inaan loo baahnayn bulshaduna aanay xamili karin arrintaas wakhtigii ay sheegeen inta aan la gaarinba waxaa u istaagay duubabka bulshadan oo ayagana la fadhiistay annagana nala fadhiistay ka maamul ahaan si wanaagsan oo buuq la'aan ahna aan dhammaanteen ku wada oggolaannay in bannaanbaxaas la baajiyey waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo duubabkii dhexda u xirtay juhdiga badan iyo maskaxda badan geliyey in badan ka dhaadhiciyey dadkii ku adkaysanayey in bannaanbaxyo laga dhigo gobolka banaadir xaqiiqdii way ku mahadsan yihiin garashada ay garteen iyo sida ay doorka uga aadan nabad ku daajinta bulshada ay uga soo dhalaaleen
sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaa uga mahad celiyo dhallinyaradii duqowdooda iyo duubabkooda aqbalay yidhi idinkama weynin soo jeedintiinna iyo maslaxaddiinnana waan qaadanaynaa ayagana waan u mahad celinaynaa runtii dhammaanteen annagoo gacmaha ishaysanna waxaan doonaynaa dalkan inaan nabad iyo daboodhis iyo barwaaqo ku soo dabaalno waxaan ku qanacsannahay oo aan xaqiijinaynaa isqabqabsi iyo qaylo iyo dacaayado intooda badan ay raqiis yihiin inaan waxba lagu gaarayn balse ay yihiin waxa dib noo dhigay arrintaas marka duubabkii way ku guulaysteen waan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dadaalkooda wixii dhimanna waxaan rajaynayaa inay halkooda ka sii wadi doonaan oo ay dhammaystiri doonaan biidni illahi alkariim